waxaan uga digayaa marka hore digniin ayaan siinayaa waxaan uga digaynaa tooga biyo soo galan waa aragta beeradan ayaa la waayay saaka shantii waxaan noo yimid gudoomiyaha gobolka bari Maxamed Walays anigu magacayga taakiin soo sheego waa Saciid Cabdiraxmaan Qablan gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Carmo ana siyaasiyaha xilka gudoomiyaha waa naga maqan yahay annagu shalay subax saan u soo galnay baan u taaganahay weli togaga durdur waa soo furnay quraanna hadda ayaan fureynaa waa aragtaa ay ku socotaa shaqadii baabuurtii horeysay gudbaysaa wadayro samaynay marka waxaan leenahay bulshada Puntland ku socotaa wadooyinkeeda Soomaaliya isaga goosta waxaan leenahay taxadar maalka iyo xoolaha wadaan nab iyo maalba waa inay ilaalisaan waa inay ka taxadartaan togaga hadda meeshan taagnahay waxay ahaan jirtay duud damanlaah waxa qaaday biyihii dhibaatooyinkaas oo dhan bay roobku la yimi toga cad aragto maanta wariye waxa weeye wuxuu ahaa kayn kayntiina waxa qaatay daadkii biyahaas weligood ma marin togan quraan marka waxaan leenahay mas'uuliyiinta gaadiidka wadayaasha inay taxadar sameeyaan oo aanay naf iyo maalba ummadda ay wadaan iyo maalkay wadaan ku haligin annagu ilaa hor shaqo yaraysan meeno ilaa barasaabku waa aragtaa waa taagan yahay oo waa nala joogaa saaka shantii boosas nooga yimi toga turturkuna wala tukaday annagu gobolka bari haddaan waa shaqaynaynaa ama degmo ahaado ama aanu ahaano gobol ilaa hadda wax khasaaraa ka dhashay miyaa jira daad waa jiraan annaga dadweynaha kan saddex wiil bay kula tageen oo yar oo reer baadiya waxay kaloo qaateen xoolo badan dad badan baa ku cayroobay oo dadku suu iska deganaa dhul aan biyo mari jirin bay arki jireen oo iska deganaan jireen 10 sano iyo waayo hore reer baadiyuhu guryo muhiim ah bay deganaan jireen burburku meel walba waa galay reer baadiyo waa sameeyay reecooyin aan bay arkeen 10 sano aan biyo marino ilaa raxmad waa taageeratay markaas guriga laga dhigay hadda dadka iyo xoolaha ay biyo la tageen waa guryihii damo oo burburku sameeyay reer baadiyo burburkoodu sameeyay way